bal daawo wax yar si deganaan ah oo naxariis ah bal u daawo muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub. Magacaygu waa Cabdirasaaq Xaashi. Halkaa nagala socotaana waa Degdeg Channel. Haddaba waxaan ku leeyahay haddii aad YouTube-ka subscribe saarin horta hore waa codsi walaalnimo iyo Soomaalinimo inaad subscribe saartaa. Waxaa kale oon kaa codsanayaa inaad sii share-gareydo oo like na saarto commentigana aad ugu wada raadiyayga. Muuqaalkan aan maanta idin hayo wuxuu qabsaday baraha bulshada 24 saac ugu dambeeyay. Facebook ha noqoto, TikTok ha noqoto, YouTube ha noqoto, meel walba social media ay Soomaali isticmaasho dhan wuu ku jiraa. Yaa kale yaa waaye ninkan waa taqaanaan waa gudoomiye Cali Jeete mujaahidka reer Hiiraan. Haddaba bal muuqaalkan wax yar aan wada daawano. Cali muxuu dareemay, muxuu ku raaxaystay, muxuu ku qoslay, muxuu isku dhawacday. Farkaaga Muqdisho soo muuqato inuu dheeraaday. Cali Jeete waxaa la weydiiyey su'aal dadka laakiin siyaabo badan ay ugu dhigeen. Bulshadoo dhan siyaabo badan ay u kala gadiyeen. Indhaha dareenka, jaceylka iyo quruxda waxyaabo kala meesha joogin. Gabadha waxay tiri hadda maxaad Muqdisho u joogtaa. Yacni waa su'aal iska khafiif ah marka la weydiinayo qof madaxa sida Cali Jeete oo kale. Laakiin habkuu u jawaabay iyo habkii emotionka looga dhigay iyo habkii loo qurxiyey ayaa bedelay muuqaalkii. Markii buraha bulshada la galay oo dhan waxaa arkaysaa wareysigii oo dhan waxa ka muhiimsanaaday inta yartaa oo Cali Jeete uu gabadh u dhalacday. Cali horta markiisii hore uu romantic ahaa saan filayo waa nin oday ah oo meel dhaxaad ah maasha Allah. waa nin gobolkiisa iyo dadkiisa naftiisa u huray kana xoreeyay cadow badan oo dushi ka saarnaa culays saarnaa ka dulqaaday. Soomaalina wuxuu u noqday halyeeyga kaliya ee maantay ka dulqaada culayska. Waxaan filayaa inuu ku heli doono magaca iyo masab iyo sharaf u gooni ah dad badan ay ku dayi doonaan. Inkastoo hagardaamo badan ay jirto, Cali la gooyay, meelo badan laga jafeeyay, dad badan aysan soo raacin, dadku ka dhashay ah. Laakiin haddana muuqaalkan ayaan u salaamayna. Ujeedadeeda maaha inaan siyaasad ka hadlo iyo dagaalo, laakiin emotionka yarka oo qabsaday baraha bulshada ayaan rabaa inaad la wadaagtaan oo gaarsiisaan xataa Cali. Waxaan filayaa inuu meelo badan ka daawaday keegana loogu daro. Waayo waxaan filayaa dad badan inay ka soo hadleen siyaabo kala duwan uga hadleen. Wareysigiina isku bedelay indha jaceyl oo kulul. bal wax yar aan muuqaalka ku soo celiyo. Waxaan u maleynayaa qof walba oo muuqaalka daawaday ilaa iyo 100 jeer inuu fiirsaday. bal muuqaalka Cali Jeete aan ku soo celiyo iyo su'aasha. Farkaaga Muqdisho soo muuqato inuu dheeraaday. waxbaa ka dhacay. war muuqaalka sii share-gareeya oo like saara. waxaan leeyahay Cali wuxuu ku jiraa dadka Soomaaliya maantay magaca iyo masabka gaarka ku leh. wuxuu ku jiraa dadka aan la ilaawi doonin maalina oo taariikhdooda iyo magacooda oo meel dheer gaarayo. waayo ninkii maalin dalkan wuxuu qabta meel buu ku qorayaa.
maantana wuxuu muujiyey geesinimo iyo wadaninimo iyo ka dhab ahaanshaha la dagaalanka argagixisada. Cali Jeete waa nin haliyey ah, geesi ah, hal gabar mahane wuxuu qalmaa 4. waxaan leenahay hambalyo Cali Jeete, muuqaalkaaga horay geesinimadaada ayaa wixii u qabsatay baraha bulshada. waxa aadna samaysay magac ku weyn beesha aad ka dhalatay, beesha ay ka dhalatay beesha uu ka dhashay ninkaano youtube-ka subscribe saara. adinkan lagu soo ammaana maantay waa inaad subscribe saartaan, hala gaarsiiyo beesha Cali Jeete. youtube-kana subscribe ha saaraan, ha sii share gareeyaan. libaax ka soo jeeda waaye insha allah. waxaana leeyahay jaceylkan soomaalida ay keeneen waa jaceyl libaaxnimo ah. Cali Jeete anu salaana kuu saaray, waxaa waaye calankaas buluuga iyo dhiig wadaniyad qof ku jiro tahay. dhallinyaradana waxaa tustay inuu guli jiraan dad geesiyaal ah, wadani ah, dalkooda iyo dadkooda u dhiman karaan. laakiin qasashay inaa cajaa'ib ah, taasaa aadna warkiisa karin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.